بسم الله الرحمن الرحيم اللهم بارك لنا وقدر كسو علي عيدينتا timireedkan agaasimaha guud ee wasaaradda beeraha Soomaaliland uu gaarsiiyay deegaanka Osoli oo ah deegaan carrasan oo ku habboon tacabka wax soo saarka beeraha waxa aqbalkii ugu horeeyay halkaasi ku beeray agaasimaha guud ee wasaaradda beeraha Soomaaliland mudane Cabdullaahi Ismaaciil Farax howlwadana ka socday wasaaradda beeraha Soomaaliland iyo odayaasha deegaankaasi qaar kamid ah odayaasha deegaankaasi oo aqbalka geed timireedkan ka hadlay ayaa soo dhaweeyay dadaalka tacabka wax beeridda ee ay wasaaradda beeraha Soomaaliland keentay ugana mahad celiyay arintaasi halkani waa mashruuca waraabka ee meesha la yiraahdo Osoli oo ka tirsan xeebaha Soomaaliland degmada Luqaya waxaan joognaa mashruuca timirta ee noogu deeqday wasaaradda beeraha ee Soomaaliland oo noo keentay 120 geed oo geed timirada waxaan nala joogaa halkan agaasimihii wasaaradda beeraha Cabdullaahi Ismaaciil Farax waxaan mahad u jeedinaynaa agaasimaha wasaaradda beeraha iyo wasiirada beeraha dhammaan iyo inta ay qusaysaba waxaan leenahay soo dhawaada jisaakala ilaahay jisaagiinaanisi waxa weeyaan wixii kale ee dhiman annaguna waxaan dadaal ka muujinaynaa wixii alla wixii wax qabada amba wax maqan ha haato ku dadaalo amba wax la noo dhiibay oo wasaaraddu noo dhiibtay haato sidii aan ugu dadaaleelnay dhinaca kalena agaasimaha guud ee wasaaradda beeraha Soomaaliland mudane Cabdullaahi Ismaaciil Farax ayaa ka hadlay muhiimadda aqbalka geed timireedkan iyo mishiin nooca biyaha soo saara oo ay gaarsiiyeen wasaaradda beeruhu deegaankaasi si 120 kan geed ee timirta loogu waraabiyo la markaana loogu daryeelo si wax soo saarka dalka ay uga mid noqoto timirtaasi mustaqbalka dhow mashiinkii horena waa haysan kana waxaan u keenay dhibtaydan haysataa waxa weeye biyaha iyo beerta biyaha kanaalka iyo beerta kala hooseeya labada ay jin waxaan u keenay inay soo kabaan si ay biyuhu dabada ugu soo boodaan waxaan rajaynayaa kanaalkaas oo socday inaan maalintan ku xigto oo aan fogeyn idinku soo noqono oo ay halka durdurayaan annagoo waliba deeq kala sidna ilaahay idinkii insha Allah ilaahay nala qabto maanta inta ay sheegeen baanu keenay 122 geed iyo mashiinka waxa kale aanu ku soconay kormeer ayixii berigii dhawaadaanu buufinay saaka waxa la soo sheegay Cali Xayd inuu joogo waan ku noqonayaa waan hubinayaa xiriirkeenu waxa weeye kii joogtada haynu maalin walba boodahadayna